asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada sida kadami waxaynu muddo kula maqnayn hawada balse wuxuu maanta ilaahay qadarin dib isku soo noqono waxaynu markaa bilaabi doonaa cashar ku saabsan user interface-ka qaabka loo dhisan gareeyo noocyada kala duwan ee UI-ga loo dhisan gareeyo casharkana maanta waxaynu ku baran doonaa wax loo yaqaano glassmorphism UI design haddii aad ku qorto ereyga glassmorphism aad google-ka ku qorto google garayso waxa kuu soo baxaya dhisayno aad u badan oo ku base garaysan waxa loo yaqaano glassmorphism marka waxaan glassmorphismku waa qaab loo dhisan gareeyo user interface-ka ama website ha noqdo ama mobile application ha noqdo ama waxa weeyaan noocyada kala duwan ee user interface-ka ha noqdee waa qaab loo dhisan gareynayo iyada oo loo eekaysiinayo tusaale ahaan matalan ama cardka oo kale ama qaab quraarad oo kale ah oo shayga effects ba xaggiisa dambe laga furaya deedna shayga ka dambeeya wuxuu noqonayaa marka blur ku sameynaya waxa weeyaan sida ka muuqata images-kan oo dhan marka glassmorphismku waa technology imika aad inta badan loo isticmaalo khaasatan sida aan sheegnay Windows 11 oo kale iyo Apple oo kale laftiisa waxa weeyaan haddaad eegto computerka Mac oo kale aad isticmaalayso meelo badan baad arkaysaa oo glassmorphismku base garaysan marka glassmorphismka shaygan wajahadaada soo yaala shayga ka dambeeya wuxuu markaa noqonayaa blur waayo shaygan sidii quraarad oo kale ayuu markaa wuxuu ku furayaa background blur ah marka designkan ayaynu markaa designada kala duwan oo weliba inagoo ka bilaabi doona basic glassmorphism ayaynu markaa maanta samayn doonaa waxaan toolskan u isticmaalnaa maanta noqon doonaa waxa weeyaan softwareka loo yaqaano Figma oo waxa weeyaan aynu hore uga soo sameynay cashar crash course fadlan haddii aanad Figma waxa weeyaan aanad garanahaynin casharkeena hore ee glass basic qaabka uu shaqeynayo iyo sida loogu shubanayo iyo waxa weeyaan interface-kiisu qaabka uu shaqeynayo fadlan dib ugu noqo software-ku se kuma base garaysna oo kaliya ta Figma haddii Adobe Illustrator haysto ku sameyn kartaa waliba isagii Figma isku qaab weeya Photoshop ku sameyn kartaa marka glassmorphism waa concept good oo maanta baran doono laakiin toolska doonta u isticmaali doonta inagu waxaanu isticmaali doonaa haddii Ilaahay yiraahdo Figma isticmaali doonaa marka ka hor haddaynu eegno design-kan sameyn doono glassmorphism-ka ka horantayna waxa weeyaan aynu eegno wuxuu noqon doonaa waxa weeyaan design-ka noocan waxaad arkaysaa qoraalka halka qoran waa glass effects-ka marka card-kan aynu wax weyn halkan ku dhisan gareynaa shayga ka dambeeya marka waxa ku sameynaya wax weeyaan waa blur ku sameynaya sidoo kale to shaygan waa transparent waxa ka dambeeya waa laga dabaarkaya isagoo waliba effects-ka blur ku furaya aynu marka from scratch ka bilowno si aan u eegno halkan waxa yaala wax weeyaan laba team ama laba color oo isticmaali doono hadda colorada liftooda u baahan tahay halkan color code-ka aan ku eegno ka koowaad wax weeyaan color code-kiisa halkan ku yaala color team kala wada isticmaali doonaan wax weeye waa halkan ku yaala laakiin ani color ka doonto isticmaali doona glassmorphism-ka waxa qasab ah shayga background-ka uu noqonaya inuu yahay waxa weeyaan shay uu glass-kan aad u dhigaysa uu ka daba muuqanayo si qurux badan ka daba muuqanayo haddii laakiin single color aad isticmaasho inta badan glassmorphism-ka waxa laga yaabaa inaanu si fiican u soo bixin aynu haddaba Figma tagno waxaan soo furanayaa waxa weeyaan frame cusub anoo tagayo waxa weeyaan toolska halkan inoo yaala ama keyboard-kaga F dooranaya dib baad ugu noqon doontaa haddii aanad Figma garanahaynin Adobe sidiisa waad ku isticmaali karaysaa marka frame-kan soo qaadano cabirkiisa size-ka doonto qaadan doontaa inaga waxaynu qaadanaa tusaale ahaan MacBook Pro 14 ama size-ka doonto laakiin qaadan doontaa cabirun baynu u baahannahay cabirka markuu background-ku inoo soo furmo waxaynu u baahannahay markaa inaynu ugu horreyn design garayno waxa weeyaan background-ka waxaan glassmorphism-ku si fiican uma muuqanayo haddii aanad background-kaagu background waafaqsan glassmorphism-ka aanu ahayn waayo waxa la markaa MacBook hadda dusha sare doorato waxaan tagayaa markaa qaybta loo yaqaano fill dadna waxa la markaa waa single color Adobe waxaan jeedaa Figma color sida loo dooranayo halka marka dooran kartaa laakiin marka wuxuu noo taagan yahay waa solid color waxaan u baahanahay wax weeye waa gradient laba color inaynu isku darno marka halkan sare ka bedelna click baad leedahay dadna waxaan isticmaalaysaa linear waxa la markaa kan waa colorkii koobaad iyo colorkii labaad colorkan u horeeyaan dooranaynaa dadna eyedrop ama halkan ku yaala colorka u horeeya waxa la markaa kanoo kale aynu dooranno ama aynu isweydaarino way kalabaad haddana dooranaa red weeyaan imika opacity-giisa 100% inu geyno isagana waxaan dooranayaa markaa colorkii labaad waxaa arkaysaa markaa background-keeni glassmorphism-ka aynu ugu talagalnay saasna ku dhisan gareynay waxaynu markaa iska xidhaynaa background-ka waxaynu soo qaadanaa markaa card baynu soo qaadanaa korantana card-ka soo qaadan qoraalka aynu iska qoranno marka text tool-ka waa halkan ku yaala deedna qoraal baynu qoraynaa ereyga iska kooban wax leena glass kaliyaata si xarfiino ugu weynaadaan size-kiisa aan soo weynayno any font-ka doonto isticmaali kartaa fartana waxaan ka dhigi doonaa markaa bold fartaad ha noqoto waxaan ka dhigayaa extra bold laakiin font-ka doonto isticmaali kartaa color team-ka white baan ka dhigayaa fartan si waxa weeyaan background-ka isku waafaqaan way
qoraalkii imika waynu samaysanay hadda waxaan u baahanay markaa inaynu hadda design garayno waxa weeyaan qaabka loo sameynaya card ah glass morphism any designka doontood ku samayn kartaa haddaad eegto markaa sawirada halkan ku yaala tusaale ahaan kan kale waxa weeyaan waa interface dhammaystiran mobileka appka oo dhan ayaa lagu base garayay glass morphism haddaad eegto designkan kale waxaad arkaysaa sawirka backgroundka madow baa laga dhigay laakiin computer ka ayaa laga dhigay markaa glass morphism marka noocyada kala duwan aad u samayn karto waxaad arkaysaa waa inaad designadaada waxa weeyaan aad google garaysaa si aad u ogaato qaababka kala duwan loo samayn karo waxa weeyaan glass morphismska innagu waxaynu soo qaadanaa simple bin maanta ka bilaabaynaa rectangle caadi aad soo qaadanaya dadna rectangle drag and drop sidaas ka doontaad ka dhigi doontaa centerka aynu ku fadhiisino dadna imika waxa weeyaan glasskeeda imika waxa weeyaan waa colored water waa solid midabkiisuna waa gray caddaan baan markaa colorkiisa ka dhigaya white baan ka dhigay hadda waxaad arkaysaa markaa haddaynu soo zoom garayno labada shay labada background ba white markaa iskama daba muuqanaya glass morphismska markaad samaynayso waxaad u baahantay markaa horta ugu hore inaynu rounded ka soo yaro dhigno hareeraha way waxaan tegayaa markaa hadda opacity magaan taga colorkiisa filkan tegayaa waxaa la imika solid color uma baahni gradient baan ka dhigayaa marka waxaan leeyahay linear waxaad arkaysaa markaa transparent buu hoosta u noqday dhinacan waxaan leeyahay markaa white-ka kadhig kan kale laftiisana waxaan leeyahay isagana white baan ka dhigaya labadu markaa backgroundkoodu waa caddaan kana dee madow ka dhigto ka dhigi kartaa laakiin white baan labadaba ka dhigaya laakiin opacity haddaad kan eegto solid opacitygiis waa 100% marka waxaan leeyahay waan soo yareynaya marka maybe 45 baynu ka dhigaynaa ka labaadna waxa weeyaan waan dooranaya marka ka labaad marka doorato minka opacitygiis isagana waxa weeye waa 0 deedna isagana waxaan leeyahay little bit ka kala ka soo yaraado maybe aynu kan 45 ka dhigno ka kale aynu kordhin doonaa ama okay 45 kan kale marka waxaanu ka dhigaynaa meelaha 60 is okay marka marba wada eegi doontaa glass morphismska shape-kaaga ama waxa weeyaan card-kaagu marba sidoo wax weeyaan kuu soo baxayo hadda glass morphismka waxa weeyaan glass morphismka ma inaan dhigin kaliya effectskii waxaan jeedaa opacity-gii baynu yareynay waxaan u sameynay glass morphismka muhiima image-ka dhinacyada oo dhami waa inuu yeeshaa midab caddaana aynu ku wareejina marka stroke aad u yar oo caddaan aynu ku wareejina waayo haddaad glasska aad aragto curve-ka dhinacyada waxay ku samaynaysaa waxa weeyaan way ka yara duwan tahay bodigeeda waxaa leeyahay stroke white baan ka dhigayaa si uu yaraa sameeyo dhalaalo kale stroke 1 point meelaha 5 aan geeyo si siyaskiisu soo yara weynaado waxaad arkaysaa imika glass morphismka shape-kiisii waan dhadhaweynay laakiin qoraalka ka dambeeya weli kumaynaa samaynin waxa weeyaan glass kamaynaa dhiganin way saan hadda waynu uga dhigno shape-kaaga dooranaysaa deedna waxaad tegaysaa markaa ka u muhiimsan waa kan effectska aynu ku furayno ayaa markaa glass morphism ka dhigaya haddaad dhammaan eegto dhisanada glass morphismka backgroundka ka dambeeya waxay ku samaynayaan waa maxay oo blur bay gelinayaan markaa si aad u geliso waxaad tegaysaa qaybta loo yaqaano effects waxaad leedahay markaa pluskan baad ku dhufanaysaa deedna waxaad leedahay markaa imika drop shadow buu ku taagan yahay markaa optionada drop shadow good bedelaysaa clicksi waxaad inoo dooraysaa waxa weeyaan waxa loo yaqaano background blur marka background blur markaad geyso waxaad arkaysaa xarafkii eedu durtoban yar buu blur soo noqday laakiin waxaan kordhinaynaa inta uu blur ka dhigayo marka waxaad leedahay calaamada yar qorraxda ku dhufo deedna imika 4 buu taagan yahay numberka markaad u baahantahay baad ka dhigaysaa marka dhisanadu kala duwan yihiin marba intaad u baahantahay baad geynaysaa imika tusaalaha inaga 15 oo kale hadaynu geyno waxaad arkaysaa eedii xarafkii ee wuxuu noqday waxa weeye waa blur maadaama lt dhinac bay uga baxsan tahay laakiin lt lafteeda iyo sta dhinacyadeeda iyaga laftooda waxay noqonayaan waxa weeyaan waa blur marka markasta sidaas haddaad xoog usii badiso xoog bu markaa glass morphismskaaga waxa weeyaan effectskaaga dambe aad buu usii badnaanayaa marka kolba intii aad u baahan tahay iyo kolba shayga kaa dambeeya intaad doonaysa aad muujiso ayaad ka dhigaysaa waxaa imika waynu waxa weeyaan soo dhadhaweyne waxa weeyaan glass morphismkii kaadhkeeni horreeyey waxa weeyaan glass morphism baynu ka dhignay way saanu haddaba aynu u samayno another shape kalen soo qaadnaa ka laftiisaynu koobiyeynaynaa altaad qabanaysa haddaad u baahan tahay copy drag and drop deedna sizekiisa kan waan soo yaraynaynaa si waxa weeyaan glass morphismskeenu uu effectskiisu uu sii noqdo waxa weeye backgroundku inoogu qurux bato curve-ka waa iska soo yaraynaya intuu noqonayo another card kale markaa kaan ka dhigay dad doonta waa soo dhinac dhigi kartaa waxaad kastaa meel kastoo la dhigo waxa weeyaan blur buu gelinaya marka qaabka doonta u dhigan karta laakiin naga basically inaad conceptka fahmin baynu ku talagalnay waayey sizekiisa weliba aan soo yaro kordhina kana kaasna waxa weeyaan waa cardkii labaad weliba xaggan markaa isaga xagga dambe aynu baranana backgroundka waxaan leeyahay isaga wax ka dambeeyo waayo mar labaad soo koobiyey alta deedna isagana halkan baynu keenaynaa sizekiisa waynu soo yaro weyneynaa isaga dusha markaa isagana aynu soo marinayna
waxaad markaa glassmorphismka effectskaas oo ku furto iyo waxa weeyaan transparency oo ka soo dhigto ayaa waxa weeyaan aad ku samayn kartaa guud ahaan imika glassmorphismkeena waan dhadhaweynay laakiin si inoogu soo yara qurux bato aynu qoraal ku qorno cardkeena marka waxaan soo qaadanayaa text tool dadna waxaan leeyahay click sizekiisaan iska soo yarayno 300 buu taagan yahay meelaha waxaad noo geysaa 24 adhoobina kordhin doonaa iyo waxaan leeyahay design card dadna waxaan leeyahay markaa farta isaga markasta inaga waxaan isticmaalnaa white so cardkeena waxa weeye transparent markasta uu inoogu soo noqdo waayo background-ka markaa waynu ka reedunaa waayo haddii kale si fiican markasta readability-ga isagana muhiim ah dad glassmorphism samaynayso waa inuu si fiican u muuqanayaa background-kaagu markaa waa yahay kanoo kale waxaad arkaysaa si fiican qoraalku ma muuqanayo waxaan ku samaynaa markaa shadow horta intayna shadow ku samaynin aan isku soo yaro dhaweyno lineska waxaa leeyahay markaa si uu kala muuqdo effects baynu ku samaynaynaa marka shadowgun iska yareynaa farta ma baahnin xoog waxa weeyaan oo blur horta aynu ku samayno waa yahay opacity-giisana soo yareyno just waxaynu u baahannahay number aad u yar oo kala saaraya white background-ka ka kala saaraya way waan dhadhaweynay guud ahaan design weliba aynu sizekiisa soo yaro weyneyno si fiican noogu sii muuqdo ama xaggan kale aynu marin doonaa waxaan leeyahay left alignment way sizekiisana aynu iska soo yareyno bal shadow aynu dib uga noqonay maadaama dhinacaynu hadda uga duunay soo kaya haddaad waxa weeyaan ka dayso way guud ahaan markaa qaabkaas ayaa waxa weeyaan glassmorphismka loo sameeyaa wixii qoraala wixii kale waxa weeyaan si baahantood ku samayn karaysaa marka weliba shapes aynu sii raacino xaggan oo kale waxa weeyaan cidhifkan oo kale waxaan soo qaadanayaa circle noo soo qaad deedna waxaan leedahay halkan waxaan leeyahay markaa isaga laftiisana waxaan ka dhigayaa linear ama okay linear aynu ka dhigno marka waxaan leeyahay colorka aynu ka dhigno okay ayo opacity-gana soo yara khafiifino just design-ka more the background-kaagu waxa weeyaan oo colorska waafaqaya glassmorphism markasta uu sii qurux badnaanaya inaga basically wax badan kusii talax tegi mayno laakiin conceptka guud ee glassmorphismku waa inuu background waafaqsan markasta helaa taas aynu ku celcelinaa oo aad u muhiima waxaan kale waxa weeyaan waa iska sii qurxin baynu ka dhiganaa labadan soo weydaarino way aynu haddaba eegno design-keena weliba design-ka xaggan aynu soo celino way kan ka dambeeya hadda dhinac waa inaad uga sii duudaa way kan ka dambeeya glassmorphismkaan muujinahaynin sizekiisa haddaynu yarayno oo dhinac aynu cidhif ka dhigno it's okay si uu qoraalka markasta readability-ga waa inaad akhridaa way qaabkaas ayaa waxa weeyaan glassmorphismka loo sameeyaa haddaynu eegno markaa imika preview aynu idhaahno ama aad tiraahdo waxa weeyaan preview qaabkaas ayaa waxa weeyaan soo baxayaa glassmorphismku waxaad arkaysaa qoraalkiina glassmorphismka markaad u dhigtay blur buu noqonayaa cardkiina waa design garaysay marka markasta waxaad samaysaa inaad tagto waxa weeyaan google-ka ama Dribbble intaad gasho aad eegto noocyada kala duwan ee glassmorphismka loo sameeyo tusaale waxaad arkaysaa website-ka waxa jira mobile applications-kan oo kale qaabka loo sameeyay waa glassmorphism marka casharada dambe waxa weeyaan si fiican ugu sii baran doona website-dada oo kale liftooda ku samaysaa marka website ama mobile aad samaynayso glassmorphism waad isticmaali kartaa marka qaabkaas ayuu waxa weeyaan u shaqeynayaa glassmorphism user interface-keenu marka casharada dambe aynu kusii baran doonaa qaabka website-dada iyo wixii kale iyo noocyada kala duwan ee UI-gada ama UI trends-ka jira ayuu shaqeeyaan marka intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa waxaan ku wada tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu